adduunyadu waa imtixaan waa dhibaato iyo murugo badan tahay dadku isku si uma soo wajahdo waxayna qof walba ku qaabishaa waji gooniya dadka qaar baa farxad iyo reen ku qaata waqtigooda inta badan halka kuwa badan la ay la nool yihiin murugo ciil urku taalo iyo aro aan dhamaad lahayn qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday Soomaaliya gaar ahaan gobolka Baay ee degmadiisa Bardaale waa qiso xanuun badan oo aan uga magac daray ilaa jecelku waa loo dhintaa haddaba dhegaystayaal si fiican u dhuuxa qisadan xanuunka badan iyo sida ay wax u dhaceen aadan yare waxa uu ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga Amuurta ee degmada Bardaale waxaana maalimaha ka mid ah uu bartay gabar lagu magacaabo Hawlul oo iyadana ka mid ahayd gabdhaha wax ka barta dugsigaasi isla markaana dhigata fasalka ama galaaska aadan yare u dhigto Hawlul iyo aadan yare barashadooda kadib waxa ka dhax abuurmay jecel had dhaaf ah oo midba midka kale u qaado ilaa iyo dhammaan laga ogaado iskuulka macallimiintana ay ka war helaan xanta jecelka lamaanahan waxaana ay noqdeen kuwa iyagu si gooni ah isku taxgeliya markastana wada jecel ay waqtigooda iskula qaataan waxaana aashaqa midba midka kale u qaaday uu gaaray in haddii aysan isla joogin ay iska maqlaan telefoonka nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban aadan yare iyo Hawlul waxay noqdeen laba aad u jecel oo aan kala maarmin waqti kasta way isu imaan jireen waxayna ka sheekaysan jireen mustaqbalkooda waxaana midba midka kale u ballan qaaday in nolosha isaga la wadaagi doono xaafadihii magaalada ayaa bilaabay xan aad u badan oo ay ku sheegayaan in labadan jecel uu ka dhaxeeyo aadan yare ayaa la soo baxay dabeecad ka duwan tii lagu yaqaanay waxaana uu joojiyey la sheekaysiga dhalinta magaalada beesha kubadda cagta iyo daawashada filimada oo uu caan ku ahaa bulshada magaalada ayaa waxay bilaabeen inay su'aalo iska weydiiyaan waxa ka dhaxeeya labadan arday dadka qaar ka mid ah waxay bilaabeen inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay allan jecel haasid mawaaye gabdhaha ku nool degmada Bardaale qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay gabadhii Hawlul ahayd ay uga sheekeeyaan sheekooyin khiyaali ah taas oo ay ku doonayaan inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay hase ahaatee Hawlul ayaa ahayd gabar Ilaahay aqli ku manaystay mana qaadin jirin hadallada ay uga sheekeeyaan gabdhaha saaxiibadeeda ah xataa waxaa dhacday inay ku kala go'aan qaar ka mid ah gabdhaha saaxiibadeeda sheekooyinkaas daraadooda waxaana mar walba is-xasuusin jireen inay leeyihiin adow lidku ah xiriirka wanaagsan ee labadooda u dhaxeeya jecelkooda maalinba maalintii ka dambaysa way sii hoogaysanayay xeer wuxuu gaaray inay iskaga baxaan halkii jecelkooda uu ka abuurmay halkaasi oo ahayd iskuulka Amuurta gabadhii Hawlul ahayd ayaa gashay nolol ka duwan tii hore jecelkii ayaa ka tanbadiyay waxayna la soo baxday dabeecad gooni ah oo ay ka mid tahay cunun yari hurdo la'aan taas oo reerkoodii su'aalo badan ay iska weydiiyeen waxaana reerkooda ay ku wareereen xanuunka gabadhooda uu hayo waxa uu yahay reerka Hawlul ayaa hore waxa u maqli jireen in gabadhoodii uu jecel hayo welibana ay jeceshahay wiilka aadan yare ah laakiin waxay u haysteen waxba kama jiraan ah